بسم الله الرحمن الرحيم. waxtarka ukunta waxa uu sooyaalku xusaa in aadamuhu uu sooyaal aad u fog bartay oo weheshaday digaaga iyo badiba shimbiraha ukunta dhala ukuntoodana ay cuni jireen balse muddo kadib ay ogaadeen inuu ugu wanaagsan yahay uguna waxtar badan yahay beedka digaagu waxa uu sooyaalku xusaa in bariga fog iyo Hindiya laga bartay oo laga weheshaday digaaga 7500 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Masar iyo Soomaaliyiintii Ciraaq deganeedna ay barteen oo weheshadeen 1500 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise Giriigii horena uu gaadhay digaagu 800 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise beedka waxa lagu tiriyaa cuntooyinka asaasiga ah ee badiba deegaanada caalamka waayahan dambena wararka laga faafiyay beedku way soo tarayaan oo waxa lagu xantaa kolestaroolka ku jirta inay badan tahay taasina waxa ay galinsiisay dadka daneeya caafimaadkoodu inay ka gaagaabsadaan oo liiska cuntooyinkooda ka saaraan ukunta daraasadaha dadka ku takhasusay cuntooyinku waxa ay tibaaxayaan inay cid waliba beedka cuni karto qof ama macaan qaba ama xasaasiyad la mooyaane qiimaha wax soo saarka beedkuna aad ayuu u sareeyaa oo waa xaglo geel wax guntiga la geliyay ka weyn haddii aad u heelan tahay inaad ogaato sida uu jirkaagu noqonayo haddii aad maalin walba 3 xabo oo ukuna cuntana u fiirso waxtarkiisa daraasad ay sameeyeen aqoon-yahanada ku xeel dheer arrimaha cuntooyinku ayay ku tibaaxeen inuu dhimo sonkorta jirka ku jirta iyo kolestaroolkaba waxa uu ka hortagaa inay qallafaan oo adkaadaan halbowlayaasha dhiigga qaada waxa uuna ka difaacaa dhuumaha dhiigga inay rasowdo oo hoosta kaga lingaxanto duxda uu dhiiggu sido ee xambaaraya waxa uu ka kooban yahay aashitada amooniyada oo hawlgallada jirka ka socda oo dhan taageerta oo tabantaabisa qofka noloshiisa firfircoonida iyo hawlgalka la jecelina kama maarmo beedka waxaana intaas u dheer in habdhiska dheefshiidku uu si aad u sahlan u shiido beedka oo waliba 8% borotiinka beedka uu jirku dheefshiido oo nuugo waxa uuna borotiinkaasi caawiyaa oo garab galaa unugyada dhowaan dhaladka ah ee jirka ku cusub waxa uu sidoo kale beedku muhiim u yahay dadka jecel inay muruqyadooda kobciyaan oo kaalingal ka dhigaan jirkooduna uu dhisnaado oo dhiibsanaado badiba dadka caalamku waxa ay la dhibaatoonayaan hoos u dhaca ku yimi fiitamiinadooda taasina waxay sababtaa inay u yeeshaan fiitamiino samaysa iyo dawooyin gacan ku rimis ah balse mooga fiitamiinada ay dawooyinka samayska ka raadinayaan inay kaga filan tahay 3 xabo oo beed ah oo uu si maalinle ah u quutaa beedkuna waxa uu ka kooban yahay wadaro fiitamiino ah oo ay ka mid yihiin fiitamiin B3, B6, B12, fiitamiin D, fiitamiin A iyo macdano kala gedisan oo ay ka mid yihiin zinki, calcium, magnesium iyo phosphate waxa uu sidoo kale ka kooban yahay curiyaha lutein oo ka hortaga dhalaadka iyo dabaca muruqyada indhaha ku yimaada ee uu horseedo gabowgu ama da'weynaantu fiitamiinadaas iyo macdanahaas kale ee uu ka kooban yahayna waxa ay jirka ka caawiyaan habsami u socodka fargallada iyo hawlaha jirka ka socda oo dhan waxa sidoo kale lagu tiriyaa beedka cuntooyinka tirada yar ee laga helo aashitada folic oo u adeegta xoojinta iyo horumarinta habdhiska dhiig wareegga colin waxa uu ka kooban yahay wadar ah fiitamiin B waaxihiisa oo isku qasmay waxa uuna alaaba ka hortagaa kansarka ku dhaca naasaha hooyooyinka waxa kale oo loo adeegsadaa ka hortagga qallafidda halbowlayaasha iyo xusuusta oo la xoojiyo habdhiska dareenwadka unugyada aadamuhuna si dhammaystiran uma shaqeeyaan haddii ay waayaan maadadan colin ee taageeraysa xabadda keliya ee ukuntaana waxa ku jira 125 milogram oo colin ah kabriidku waa curiyayaasha ka taageera jirka la dagaalanka bakteeriyooyinka waxyeelada badan iyadoo ay ilaalinaysa protoplasmka dhiigga waxa ay sidoo kale maadadani ka dhowrtaa dhabarka dhibaatooyinka haleela marka uu ruuxu gaboobo waxa sidoo kale ku tiirsan maadadan kabriidka borotiinka collagen ee xoojiya cidiyaha iyo timaha aadamaha sidoo kale maqaarkana xoojiya ee nuuriya bilicdana u yeela sida awgeed uma baahni dawooyin samays ah oo collagen ka kooban mar haddii aad haysato beed waxa intaasba dheer beedku haba yaraato ee wax dhibaabo ah uma horseedo beerka iyo unugyada kale ama habdhisyada jirka waxaan faa'iido iyo waxtar iyo nafaqo ahayna lama soo giblana ee daawada haddii aad caafimaadkaaga iyo bilicda jirkaaga danaynayso ha mooganaanin waxtarka beedka Ilaahay inuu ugu kaydiyay